gabadhaan jeclahay kow waxaan ku doortay dabeecaddeeda. dabeecad wanaagsanta masha Allah Damee qofka dabeecaddeeda isku fahmin. ha isma fahmi kartaa labada qof xiriir ka dhaxeeyo. Xiriirku waa gurkiyo yara caslan moogtay. salaanka iyo bariis maya kaas suuq soo socda la suuq meedan والله هذا سوق حافظ الحر يقرا حدان فنان نقول لها waxaan noqon lahaa qabar suugaani Soomaaliya soo mara oo noqonay madaxweyne saddexaad Tahir Yaale Kaay waa madaxweyne waqtigu dalka haystay aan la aqoon qabyaalad aad arkay dad is haysta aan siyaasad lagu foolaa jir horta liib xog akhriyo dadka Tahir siyaad baan idin salaaminaa saaxiibayaal meel kasta adduunka ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii taxanaha ee la socoteen xalqadii saddexaad maad iyo muuqaal mar kale waxaan nala joogay istuudiyaha baabka burco Jamaal Ciise inta building soo dhawow fadmo awgurd oo salaamaya sharaf iyo karaamo mar labaad sharaf ay tii mar saddexaad iyo mar fadmo mar saddexaad oo mar awow soo dhawow waa mar saddexaad oo mar YouTube ka soo aadi oo faraxsanaw aad baa ku salaamaya saabtada ugu salaamaya inta kugu soo beeri doontana waa salaamaya insha Allah billahi kareem horta awowgay awowni mun bacaaw halka ku yimday baraanki baan doorkii hore ku sameeyaan ogeyn waxaan ku dib igu soo noqon maalinka baraanki ku sameeyay wallahi maalin baad baraanki ku sameeyay inaan ogeyn baa wallahi maalinka ajriga ma shaqaysan wallahi wallahi waxaan ku isaga hurdo ka soo kacay wilibana marka waan ku raali gelinaa caawa laakiin su'aaluhu adaa gacantaada kula soo baxaya wala kula soo baxayso marka inoo bilow su'aashu goor inoo bilaaba oo walaaqay horta kulli baa lagu wada weydiinaya marhaba way taabso bismillaah الرحمن الرحيم iska ku bilaabo baa la sheegay rabbi heerka islaami hore inta soo deesho inta hadaa noqon lahayd waxaan noqon lahayd inta hadaa noqon lahayd mashahi caana geelaha bad noqon lahayd inta hadaa noqon lahaa jawaabta su'aashaas hadaa isku dayo inta hadaa noqon lahaa horta ilaahay baa tagay markii qof leeyahay gariyo laakiin waa Allah dab yaan lamada waa Allah hadaa inta noqon lahaa waxaan noqon lahaa saar bila suuq noqon inta wada suuq noqon wada suuq shidan haade tusaalahan waxaan kalaanka iyo bariis maya kaas suuq soo socda la suuq meedan والله هذا سوق حافظ الحر يقرا ما jirto dadku waxa laga yaabaa boqolkiiba waxa laga yaabaa konton hatta wallahi hilib baan noqon lahaa in hilib go'an marka waxa noqon lahaa saxaafada walba soo hawlba laga qoraa quraacdo أنا أحس لا وحنا نقول لها فدريشن وحنا لو نجرب على قعنا نجرب هذا فدريشن بسم الله أظن فاضل الله تربدي معايا معايا أول ما حد يحسس الله تربدي معايا الله محن وتيل كي معانا يتربك عنا والله هذه سلامة يا شغالين معانا وتيل عليهم كلام سلام وتيل هو ساعة شغال ولا صباح طلع بعضنا حرنا ساعة سرت هذا وين يدو شغال هاي عاود وحال عليه وحد سر هاي لعل هذا سر وين الله يهاد شغله أباي وشغله أباها ولا وقتك أنا كده وني سنابك وايد أباي أنا وصاحبي وأنا قفك كلي مقراص هاي مع تذكرتي ما كده واحد سكيتش رسمه قريبا وحلاقي يا با أصحاب هذا قف شيء طبعا أنا قفك أنت سقطت بريت ولا سرت أنا تذكر أنت هنا بدني حب يقعلنا ما هي كلام dadku soo badiyay imaka sheekay ka dhigla markaas abay wala shaqada hada sir ugu weyn aan bixinayo abay wala shaqada ila cimriga caafimaadka baa dheereeyo waa ka salaamay abay isaadan faax waas awad landheere banaan digi aadi takale la soo ku soco su'aalaha waxaad uga jawaabaysaa waxaan madaynad adigu qortay ما يدري سؤاله أروح وحي بكرة سايحد بحال كير ويقول له كلامه وريك دير مترو ها هدي وود له هنا قف نفط هذا وبدل شو يدو بدل له أنا بسأل دسك حجين ها هدي اللي على عضله بدي ولا هدو مدي قهرة يعني بدل له دي أنا أوده أنا وقف بدله إلى هو والدين تها حفظه إلى هو والدين تها حفظه ويا هاي نصيب كذا حسكو حجي والدين تادي حيوان باريس بار تصل الصبح هذا شو ساشني ولي من رأس التلفون قاعد عنده وجر أورجر وهذا هذا هو بدل يقول هذا أنا التلفون كهالله معنا نقول هذه أنا قبل الله هذا وقبل قد يجرو
qof ila socda kuuri wana telefoonkaygii maad aragtay oo ku hadlayaaba qof ugu laado wadada ku hadlayaba marka waxyaabo ugu badan aan ugu raadiyaba aad iyo aad adoo guriga imka maalin dhawd waxay ku dhacday intaan xafiiska ku xidhay inaan baxay telefoonka ma suuqii aniga waxa si wala laba mool basta marka waxa laga yaabaa mid anoo meel habeen waxay ku dhacday gaariga xagga doofay alaabaan kala baxay telefoonkayga saarasho telefoonka xagga gaariga ku rido ku xidhay haddaan madiga aamin sidaan ku raado wax raadinaya mara laba saacadood rag baan u yeedhaa kuri gaariga telefoonka ka dhaxlo gaariga ka dhaxlo la raadiya markii dambe aan dig leh xaseen xagga doofay mar aad iyo bal ka waran gurigana qaar wala marmar waa lagu ilaabaa iyadoo la sii baxayo guriga dumarka ku ilaaway inta badan su'aalo waa baaray hadda ta u hooseysa isla bal inay aad iyo aad hadda la heshay xawiye taasan celiya taasan la soxayso waay bismillah hadda fanaan noqon lahay waar waa hagaag alla maxaad fanaaniin ku buuxa horta bal ka waran xagga heesaa isku fiican Soomaaliya ma yaanu ma heesaa war hadlaay hay'adda isku fiicantii laakiin waa dhageysataa wana arkay haddaan fanaan noqon lahaa waxaan noqon lahaa gabar sugan goodka waay goodka ummadda Soomaaliyeed goodka ummadda Soomaaliyeed baan noqon lahaa waay qamar ma jiraan heesihiisa jeceshaan waxaan jecelahay jasiiradda Dheemalula qamar heesihiisa heesa badan baan jecelahay heestaada ma samo cimiladooda aweyskani ma fiicna heestaasaa ka mid ah hees kaloo tiraahda ayaduna maxay ahayd tolay haddaa suuro gelin karo jinkan kuusa sabir iyo hees kaloo tiraahda dawey magacaaga bilan dhulkaan damcayna ku qoro cirkaan damcayna ku qoro aad iyo aad ma dhulkaan dhulkaan damcayna ku qoro moornaya cirka iyo samadaan ku dii ku daabac markaan isii laakiin marka saaxiibka waxa laga yaabaa inuu cirka dhulku ka soo degay markoo ilaahas ku kaasay waay ana shukri baan jecelahay shukri nafta dirisaa ku tiri dhakhtarkaygii shukri dameero haddaan badaha farafray meel kala wallahi dagaal ka bilaabaya aad iyo aad shukri daa garanaya anigu laakiin taa oo ku sheegay waay iyo wax naga raacay waay su'aalahan diidayana kuwii hore ku darsatay wallahi ila dib u ceshto hay mar walba xasla su'aal jira sax go'so ka baaro su'aal jira sabax go'so waa ka lacay bisu kuma mid walba loo qabanay waay haddii aad madaxweyne noqon lahayd keebaan noqon lahayd mudane madaxweyne soo dhawow Jamaal Ciise mudane madaxweyne soo dhawow hadii la oranayo Soomaaliya waxaan noqon lahaa wareysanaya leh mudane madaxweyne jumhuriyadda Soomaaliya soo mara oo noqonaya madaxweyne saddexaad taariikhka waa madaxweyne waqtigu dalka haystay aan la aqoon qabyaalad aan arkay dad saysta aan siyaasad lagu fuulaa jiro horta nin maxuu ku akhriyo dadka daariya waa siyaasadda waxaa ninkaas siyaasi waa aadiya madaxweyne daariyaal kaahin marka xusuusta ka noqdo imrigii caafimaadka ilaahay ku barakay anaguna waxaan aamin kaasa noqon lahaa waayahay hadduu soo noqon lahaa ka waran madaxweyne nolosheeda hadduu mar kale sharix lahaa ka waran waan dooran lahaa feerasti wan qofka u horeeyo oday daariyaal kaahin hadduu mar labaad soo sharix lahaa noqon lahaa waay laakiin markii uu joogay de waad yareed beriga waa yareen nin weyn baa hoo noqday tii horaan kaa jartay adigu sirtood tii horaan kaa jartay iska wad meedi madaxweyne kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cigaal waxaana waa taageera laakiin isagu madaxweynagiisu uu yeerayo codkiisi wad dhiibtay ha codkiisi waa dhiibtay laakiin wali lama malayn karo wuxuu qaban doono aad iyo aad inuu wanaagsanaan doono inuu magaraas horta sanadkii horeeyay wada aragtaayo wuxuu noqday madaxweyne wax qabta badan ugu dhax dhig badan aad iyo aad horta dhigahdigiisa ma dhamay adoo ma la dhex dhigtay madaxweynaha waayo madaxweynaha intii hore ma daaro kar waxa la soo fulay salaaga markuu halkaa fulay ilaa lama wadina keligii waa wadaya ma waxa tiri ummadda u shaqeey keligii baa wadaya arka ku dhac waay si ay xigta baabka inta building saas waa la soo baxaya dhibaalka waan qaatay baabka fuuda hadduu moolka ku hadli lahaa alla muxuu sirhaya muxuu kaaga daawo lahaa moolka haddii uu hadli lahaa waxay kaga daawo lahaa isticmaalka isticmaalayo waay 24 hour dhig buu oranay 24 hour dilay ma sax tirada xaqadii 24 hour inta badan way hurdaa 12 saac hurdaa waay marmar aan meel yaro jooga ama dad la jooga mooyaane inta kale waa isticmaal marka wax qoran la dhig marka xoolo la dhig inasi boo dhalay nas ka kale isma nasiyaan labada moobil midna waa akoonkii waad ka heshay weeyaan markuu midda uu soo yaraadaba
ka kalaad ku wareejtaa kalma ku wareeji waaya su-aasha xigta laa ilaaha ila allah hay su-aalaha waxaad uga jawaabaysaa sida qof wax bartay sidii hay qof markaa wax barahayto barahay waay haddii lacag aanad shaqaysan aad heli lahayd maxaad qaban lahayd haddii lacaga inaad shaqaysan ay kusoo gasho caawa intay doontaa noqotee haa dadkaan dee kaga farxin lahaa qof walba meeda asxaabtayda aniga may soo dilaawo waxaan odhan lahaa aduu asxaabtayda kuma jirta dahay sawina adiga taadi waalid baa ku haymaya hasa iguma soo tijaab nasacaaga waad heli laakiin asxaabtayda maaragta ma khaylnimada iska daa asxaabtayda maaragta intaan isku fiican oo dhan waxaan odhan lahaa hala baashaalo hadday baashaal ka badan tahayna dee hala raaxaysto waayahay haddaad xawayaan noqon lahayd kama noqon lahayd xawayaan yey baan kula jeclaa anugu Maya- ninkaas waa nin khatara halkaas saaran maya xawayaan hala shari Ah. ha waxaa lagu leeyahay waa ninka keliya maya anigu si sharaf laa u noolaa libax baan noqon lahaa si sharaf leh walle aan u noolaada ma si sharaf leh aan u dhintee libax baan noqon lahaa haddaaba tahayba may libax baan noqon lahaa miya xawayaan miya de xayawaanku Caadi baa libaaxu waa loo ka ugu wanaagsane ha waaye iyo xaggii waaweynaana ma wanaagsana xaggii yaraana su-aala ma wanaagsane how su-aashan haddii way ka bilaabmaysaa haddaad bay ka bilaabmaysaa haddaad gobol somaliland ka wada noqon lahayd kibaad noqon lahayd waayahay ma waxaad noqon lahayd maroodi jeex ma booramaa waxaan noqon lahaa Gobolkii aqoonta. gobolkii maamadiina kasoo jeeda oo loo yaqaano gobolka halganka waa keniyokaas mataqaana adigaga naxisa halgankaas gobolka halganka alla hataa gartay Haye. iyaana dhiiqa gelin Ha. ayaan ku fadhiyaa haddaanad garanayso sooda may waanahay sooda waanahay waanahay haddaad garayso sheeg haddaad saxdo waawey abtiyaasha hadda waan garanaya intaasaad ku adkayaashii daratay. adkayaashii weeyaan ha gobolka hawd baan noqon adkayaasha dirka gobolka hawd baan noqon gobolka xiniyaha ha gobolka hawd gobolka adkaashay loo bilaabay Waay. halkaan waay haddii aad 5 minute qof noqon lahayd qof kale noqon lahayd ayaad noqonaysa yaad noqon lahayd waxaan noqon lahaa sheekh mustafa alla maasha allah tabaaraka si aad dadka uga faa'iideeyo cilmigayga iyo aqoonta iyo aqoonta iyo diinta dad badan aad adigu ka mid tahay baan odhan lahaa xijaabka la xidho hala tukado xijaabka leh ma taxsanta salaada horta ugu bilow waan wada awow maasha allah maasha adoo tuka jir baan ku ogaa adigu waxaa la yidhi inaad dhacdo ma tukatid kuftidee markaad kutubaa sujuudamada ka jeedaa intaasaan noqday yaa way tukanaa Ay. su-aasha si toosaan loogu soconay cabdibaasifa waa mataankii kee cabdibaasifa waa ku casheeyay inta badan habeenkii cabdibaasifa waa cabdishukur faad mataankiisi wey su-aashani waa wata ugu fududba su-aalaba aad weydiinaysa waa tii ugu fuday cabdibaasifa aad horta waa nin niga yar laakiin waa ninaan aad saaxiibina wuxuu ku casheeyaa inta badan ninkaas aada wuxuu jeceli inaad siiso isaga wuxuu ku jecel inaad harakood siiso waa in ninkaa timihiisa adago si timuhu kasoo baxaan baa adag wahin bay usoo baxeen marka harakoogu aad buu timaa usoo saaraa moogti wale marka ninkaas inta badan waa ku cidiyahana uu soo saaray baa casheeyaa. diirka wale harakoogaas ku casheeya maasha allah saddexdiisa waqti hadduu heli tiimkii harakooga haysta soo xaadiriyaan tiim harako smooth dahabi shape. bay u yaqaanaa reeb raco soo ma garaysa dahabi reeb raco halkaad joogta halkana dahabi ka dilaya iyo dayaxi iyo mee dayax dayax xirtaa wuu macunta weli mee dayax shuqulkiisa mina imse dayax indhaa kala baxday mee dayax oo waxa cuna dadka gaboobay ee doonaya inay maya dhalinyarada cuntaa muxuu taraa dayax faa'iido badan fitamiino badan haddaan kuusoo diraya muxuu taraa horta anu waxaan u yaqaanay dadka gaboobay inay cunaan oo waxaan maqli jiray baalka in lagu yaraado dhalinyaro lagu noqdo laakiin dadii dayax maan gaadhaan ugu laakiin hadday dhalinyaro cunto muxuu dhalinyarada faa'iida u taraa nooga faa'iiday maadaama hore u socoto anuu dayaxa waan jecelahay hayda waa adna jecesha qof kasta burca ka yimina dayaxu cuno intaasaan ku dhaaf meenu dayax kuma wareegin geesna kama fadhiistan oo beri baan ka ah adigu laakiin nooga faa'iideeyo su-aasha waxaad noo raacaysaa 3 faa'iido uu leeyahay dayax dayaxu waxaan idinka soo sheegaynaa barnaamijka xiga mee barnaamij waxaan waa su-aashii markay taaganta ku shaqo awo su-aashan maxaad u qoratay kaa dhabaheed su-aasha adaa qoray maxaa qoratay haddii aad noqon lahayd madaxweyne maxaad qaban lahayd 24 saacadood 4 saacadood gudahood baabka ma wadankaad wax u qaban lahayd
ma ceerigaabad ma burcad geen lahayd horta intaan xukuumadda waxyaabo waddanka kama gaarsiinaya waxu qabtay hee 24 saacadood hee waxa aan qabtay horta su-aasha waxa ka horeysa ma la bedeli lahaa mise lama bedelin saas ku dhaqan gelin dee kolle madaxweynihii 24 saac wax ku qabtaad noqon lahayd madaxweynaha 24 saacadood ku qabtay 24 saacadood wax ku qaban lahaa qof kasta oo miskiin ama dadka masaakiinta man ka dhaaf Caawila. ma wax ka dhaaf lahaa cashuurta wax la dee cashuurta maxay tartaa wandhiga ma 24 saacadood ma inta gibigeena wasaan ka dhaaf lahaa haa waaba laga oo maxaynu ku lanaan lahayn waa naxabee dadka taajiriinta laga guro ee ganacsiyada leh kuwaasaan cashuurta ku laba jibaari lahaa hore la bixiya cashuurta ilaa dadka masaakiinta maasha allah tabaarak allah bal arrintaa dib aan ugu eegno si dadka masaakiinta abaal weyn ay ugu hayaan mar haddaan soo sharxan macalin si wanaagsan ugu codayaan haa taajiriinta diidiida waxbay gama gelin taajiriinta iyo dadka danyarta dadka deertaarta mas-uuliyadii naga saaran ها dadka mee dadka saaba badan macaa marka dadka saa fiiska sii samaysan lahayn mar labaad soo sharxada waaya su-aashan waxaa odhanaysaa gabadha aad jeceshahay saddex waxaad ku jeclaatay ad ku dooratay kow lamber kow gabadha aad jeclahay horta fadliga ku sheegay gabadha jeclahay tiktokta waay gabadha aad jeclahay kow waxaan ku doortay dabeecaddeeda dabeecad wanaagsanta masha allah damee qofka dabeecadda deedaa isku fahmin ha isma fahmi karta eeg labada qof ee xiriir ka dhexeeya xiriirku waa guurkii yara caslan moogta hadhow tole qofka haddaa dabeecad ahaan aydan u heshiinayn hadhow tole ma guri wada tagtaan hadda se u heshiinaysa xiriirkiiba qofka waa isla cadilayo soo ma guur marka tagtaana waa isla cadilaanaysaanba waaba tiyo dee mar walba guri kula joogta ama wakiiba mar walba guri kula jooga marka waxay noqonaysaa dee labada qof hadday anu qofka dabeecad baa leedana qofka xiriirkaa isku fahminba dee wax kaloo aan iskugu sixirnaa meesha ma yaran wadadaha aragtaan wadadaas aan reey marka ko wax kamid a dabeecadda laba akhlaaqda saddex wata saddexaada waa sida anigii qadaraysa dee ixtiraamka ixtiraamka qofka dee haddaan maanta ninka wada sheegaystaa anigu qadarinaya cid kale dee waxaad kulis joogtaa waxba ma maxaad jireen kulis joogay waxba ninkaad la sheegaysta maanta faadima soo adiga halkaa kaga soo raadiyay haddaan ku qadarinayn maxaad kulis joogay waxba waxaad kulis joogtaa ma yaalaa soo ixtiraamku waa seeska nolosha ixtiraamku waa waxa koobaad fikirkaaga in lagu ixtiraamo waxaad wadato wax walba in lagu ixtiraamo maaha waxyaabaha qaar dee magarasa ha qofku wuu diidi karaa waxyaabaha qaar waa dee magarasa u diidi karaa laakiin majority ha su-aashii ugu dambeysay su-aashii ugu dambeysay aan kugu soo dhaweynaynaa su-aasha waxaa odhanaysaa leana halka ku haysta adaa ku haystaa haddii aad qofka adduunka ugu taajirsan la kulanto sida Bill Gates weydiisan inuu ii dhiibo un 4 bilyan 5 bilyan waaw bal ka sheekee namad garateen xilligaa deetana aan kula dadka la baashaa ma anigu hala baashaa walle mar walba anigu waxu maadho la dadka hala baashaa intaasaan waxaad oqon lahay taajirka qura ee ku caana hala baashaalo hala baashaa waay waxaan ku leeyahay baabka hala baashaalo aad iyo aad faaduma aad baan ku salaamayaa waana mar labaad waan ku faraxsan inaan kasoo muuqdo youtube-kaaga asxaabtaadana waan salaamaya mar labaad aad iyo inta kusoo birto kaftan xiisa laba halkan inta barnaamijka daawo doontana waan salaamaya adigana waxaan ku leeyahay awow guuleyso awow mahadsan tahay kaftan xiisa la halkan nagu dhex maray waxaan idin leeyahay xalqadda xigta ay isku keen